madrasadan waa madrasada ugu horeysay magaalada Dadaab ee lagu aasaaso waxaana la aasaasay 1982 ilaa yawmina hada maarta ay socotaa marka waa waqti dheer ka badan bay soo qaadatay saadogtihiin madrasadane waxay soo martay maraaxil kala duwan marka hadda waxay maraysaa marxalad ibtidaai ah iyo marxalad mutawassita ah iyo marxalad sanawiya ah marka marxalad u hooseyso oo maarta aad aan u soo gaabino 3 galaas ah iyo marxalada dhaxa oo 2 galaas ah iyo marxalada kore oo maarta ilmaha ay kaga baxayn oo 3 ah ba maartay yay leedahay marka waxa qaadan doonaan hadda shahaadooyinka cadaadiga qaybta dhexe kuwa sanawiyadan insha Allah taala sanadka dambe marka xafladda sidan u dhigayno yay qaadan doonaan qaybta dambe ee maarta sanawiyada ee maarta ka bixi doonaan madrasada dhammaan doonaan ee qaadana ee kana sanadka soo socdo madrasada cadadka dulwaadka ay joogaan waxay ku dhow yihiin taqriiban hadii ilaa 250 canug yaa joogaan marka qaybo lagu daro ilaa 270 laakiin sida rasmiga waxa jira ilmo iskuul iyo waxba iska jiraan marka 250 kaas ardayda 50 canug waxa laga ma qaado 200 saadogtihiin kuwana 500 baa laga qaadaa kuwana 1000 shilin baa laga qaadaa cadadka u badan waxa waaye waa 500 waxa kuwa 1000 shilin laga qaado waa qayb yar oo qaybta kore ah way macallimiinta joogaan waxa waaye maartay 12 macallin sida rasmiga ah waxa waaye 12 macallin markii lagu daro maartay sheeqeena Sheekh Shujaac khayr Allah siiya maartay madrasada barnaamijkeeda iyo maarta la socodkeeda wado oo qaybo badan ka qayb qaato ad garanaysaan qaybta tacliinta qaybta dhismaha qaybta dhaqaalaha qaybaha badan buu ka qayb qaata sheeqa marka asaga laga bixi waa 12 macallin marka asaga lagu daran 12 macallin ayay noqonayaan marka maraaxisha ay madrasada ay leedahay waa marxaladaas saad u tihiinna waa dareemi kartaan ininka macallimiinta inta dhan ee culeyska badan haystaan beelad madrasada waxaan u bedelnay xifdul matuun wax la dhaho oo kutuba maarta culus baa lagu akhriyaa oo xalaqaad u dhigmaan yaani labadii barnaamijka hore madaarista ilahan jirtay iyo waxaan isku darnay maarta barnaamijkan kale xifdul matuun marka barnaamij maarta markii loo fiiriyo xalaqaadka madaarista lagu akhrin jiro kala ah ee madrasada qaadata oo aad u culus oo maartay kutub culus sida tafaasiirkii iyo axaadiistii iyo fiqhigi kutuba aad u culus sida Abu Shujaac iyo maartay kutuba aad u culus bay qaadanaysaa marka macallimiinta ayaka yaa maarta qaataan marka madrasada waa iska dareemaysaa baahida xagga dhismaha alxamdulillah hadda dhismihii kulli waa un loo baahan laakiin xagga dhismaha hadda baahi way nooga soo dhamaytirmatay laakiin baahi waxaa jirta dhaqaaleed baahi dhaqaaleed oo macallimiinta ay leeyihiin baa jirta ad garanaysaan macallimiinta waxay qaataan waa 10 waa lacag aad u yar maanta iska $100 ah waa lacag aad u yar marka madrasada waxay u baahan tahay inay hesho meel ay ku tiirsato ciyaalka yar yar iyo caruurta waxa laga qaado iyo dad maartay khayraad oo khayr Allah siiyo sida guddiga sare waxay leedahay board iyo waxay leedahay committee yaani guddi sare iyo guddi hoose waxay isku dardaraan waxyaalaha yar baa meelaha ka soo galaan kuma socon karto wax qof jeebki iyo maarta ilaaha yar jeebkooda kuma socon karto marka waxaan codsan lahayn in dadka muxsiniinta ah ee wanaagsan madrasada loo helo wax la yiraahdo waqaf waxa waaye meel ganacsi ah ama meel maartay kira loo qaado madrasada oo madrasada ku soo noqoto soo maarta madrasada ay u socoto waa arkaysaa madrasada quraxdeeda iyo barnaamijkeeda iyo say u taalo iyo ilmihiisa wax u soo bandhigayeen laakiin waxaan oo dhan wuxuu ku socon dhaqaale in la helo hadii dhaqaale la waayo waxa ma soconayo marka waa in dhaqaale la helo dhaqaale la'aan wax soconayo ma leh marka waxaan ka codsanaynaa waalidiinta iyo maartay dadka muxsiniinta ah iyo dadka wanaagsan iyo dadka dareemo inay ku bixiyaan kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo sunnadiisa inay wax ku bixiyaan jecel inay maartay markaskan Faaruq oo waqtiga dheer soo qaatay waxa hoos u dhigayna dhaqaale la'aan ay tahay in maartay dhaqaale loo hagaajiyo dhaqaalahaasna uu maartay ku ahaado dhaqaale maartay madrasadii wax ooga soo baxo waxaana maartay
waxyaalaha weli aan fahmin kamid ah in madaarista sidan oo kala ah iyo taxfiidaha sidan oo kala loo helo meel ay maartay ay wax ka qaataan guriyo ayaka ay leeyihiin ama ganacsi ha ahaado ama dhul meel la jiifta ha ahaado laakiin dhul dhaqaale ka soo galo oo lagu dabiro macallimiinta iyo madrasada socodkeeda in la helo